sheekadana maanta waxay ku saabsan tahay filimkan. bilowga sheekada waxaan arkaynaa gabar la yiraahdo Leel oo meel wareeg ah ku socota oo eeyo badan ay erinayaan. Hadda waxaan nala tusiyaa sheekada in yar ka hor. Maxay eeyahan oo dhan u raaceen Leel? Leel waxay beerta ku ciyaarisiisay eeygeeda oo ay u bixisay Hagen. Marka hooyadeeda ay u timid in ay kaxayso, Leel hooyadeeda ayaa aaday wadan kale dhowr maalmood. waana sababta ay ugu timid inay Leel uga tagto aabaheed. Leel hooyadeeda iyo aabaheeda way kala tageen. sababtaas awgeed waxay la joogtay hooyadeeda. waqtigeeda inta badan waxay la qaadan jirtay eeygeeda Hagen. Leel aabaheed wuxuu ahaa hilible. wuxuu qaban jiray shaqada geynta iyo iibinta hilibka. markuu dukaankiisa ka soo baxay, wuxuu arkay xaaskiisii hore iyo gabadhiisa Leel oo dibadda taagan. Leel hooyadeeda waxay ku tiri, waxaan u imid inay kula joogto in muddo ah badhaada. marka aabbaha Leel u eegay, ma dareemayo wanaag sababtoo ah eeyga Hagen ayaa la taagnaay. Leel aabaheed gabi ahaan jeclan eeyada, waana mamnuuc in eeyaha lagu hayo halka uu ku nool yahay. laakiin markuu arkay wejiga Leel ee aan waxba galabsan, wuxuu diyaar u yahay inuu Hagen la joogo. markay guriga yimaadeen, Leel eedadeeda waxay aragtay Hagen in ay gurigeeda yimid. waxay hadda ku tiri Leel aabaheeda, waad og tahay inay mamnuuc tahay in eeyaha halkan la keeno. maxaad u keentay? aabaheed wuxuu yidhi, warwaran waxay halkan joogi doonaan dhowr maalmood. Leel waxay cunto siisay Hagen habeenkii, laakiin aabaheed gabi ahaanba ma jecla ka Leel weyn in la seexato. aabaheed ayaa sidoo kale diiday tani oo ku xidhay Hagen musqusha. maskiinka Hagen habeenkii oo dhan way qaylinaysay. taasi awgeed Leel iyo aabaheed midna ma seexan karin. marka hadda waxaa kacday oo aaday musqusha uu aabaheed ku xidhay Hagen. kadibna waxay guraacaysaa muustika ayaa guraacaysaa oo Hagen ayay ku mashquulinaysaa. kadibna Hagen qaylada way dhigaysaa. markay tani maqashay Hagen waxay timid nabad oo way seexatay. subaxii dambe ayaa nin u yimid Leel aabaheed oo ka yimid saldhigga. wuxuu ku yidhi, Leel aabaheeda waxa aad haysaa eey aan diiwaan gashanayn oo aad cashuurtiisa bixisid. dhab ahaantii haweeneyda guriga ka deganeed ayaa u sheegtay booliiska waxa ku saabsan Hagen. Leel aabaheed wuxuu isku dayay inuu wax badan qariyo oo dhab ahaan ma haysto wax eey. laakiin kadib Hagen ayaa ka soo baxaya musqusha. Leel waxa ay sidoo kale si qarsoodi ah u daawanaysay waxaasi oo dhan.